السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسو دوادا جنال كيغا شيكوينكا waxaan idin hayaa sheeko qiso gaar ah xambaarsan. waa sheekadii la magac baxday kun habeen iyo habeen qaybtii koobaad. waxaa la sheegayaa Allah ayaa si xaqiiqda oge inuu jiray waa hore boqor oo ka mid ahaa boqortooyadii reer Saasaan taasoo dhacdo galbeedka Hindiya ka dhacday iyo Sandi. wuxuu ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaaleba. wuxuu dhalay laba wiil oo kan weyn la dhihi jiray boqor Shahriyaar, kan yarna boqor Shah Zaman. waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida kadib isugu wacay labadiisii wiil ee amiirha ahaa, wuxuuna u sheegay in boqortooyada uu kala qaybiyay oo mid walba goonidiisa wax u xukumi doono oo aysan cidna isku xadgudbi karin. kadib markii boqorkii weynaa dhintay, labadii wiil sidii ayay yeeleen, mid kasta boqortooyadiisii ayuu maamuusay. muddo markii ay ka soo wareegtay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar wixiisa walaalkiisa ka yar wuxuuna u qoray fariin uu u sheegayo inuu wixiisa uu doonayo inuu yimaado. boqorkii yaraa uu ka yeelay hadalkii walaalkiisa wuxuuna go'aansaday inuu u safro. maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. markuu muddo jidka ku soo jiray ayuu wuxuu xasuustay inuu iska soo iloobay hadiyad qaas ahayd oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn. sidaas darteed dib ayuu u laabtay wuxuuna qasrigiisii ku soo noqday waqti habeen ah. markuu qolkiisii soo galay ayuu wuxuu arkay arrin argagax leh, aadna uga fajacay. wuxuu arkay xaaskiisa oo adoon sariirta la saaran yahay. boqor Shah Zaman markuu arkay arrintan ayuu adduunkii la madoobaaday, wuxuuna is yiri hadiiba naagtaada falkan ku kacday adigoo aan weli beledka toos uga bixin, maxaa dhici lahaa haddii aad maalmo sii maqnaan lahayd. markaas ayuu go'aansaday in labadoodaba uu ka taqaluso asagoo kurka ka wada goynaya. kadib boqorkii isagoo murugaysan ayuu iska soo baxay, wuxuuna u yimid walaalkiisii iyo boqortooyadii uu ka talinayay. kadib boqor Shahriyaar aad ayuu uga farxay maatinka walaalkiisa ka yar, si fiican ayuuna u soo dhaweeyay, laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar faraxsaneen. markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu kasoo fogaaday dhulkiisii iyo boqortooyadiisii. kadib boqorkii weynaa wuxuu u diyaariyey markab si ay ugaarsi iyo tamashle u aadaan, isagoo uga dan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugada ku iloobo. maalintii la bixi rabay ayuu boqorkii yaraa ka cawdardaartay inuu baxo. kadib walaalkiisii ka weynaa iyo kooxdiisii keligood ayaa ugaarsi aadeen. boqorkii yaraa isagoo qolkiisa isaga jira aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa soo xigtay dhinaca beerta qasriga shanqar ka dareemay. markaas ayuu dhinaca soo aaday. wuxuu arkay arrin ka yaabisay tii haysatana ka daran. waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidiisii uu qabay boqorkii weynaa oo adoon gacanta haysata iyo 20 jaariyadood oo mid kasta adoon gacanta ku haysata. halkii ayaana tumasho la galay. markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shah Zaman isiri walle dhib ku haystay waxaa ka daran kan walaalkaaga maanta haysto. wuxuuna go'aansaday inuu iska iloobo murugtii haysatay, caadina iska noqdo. markuu soo laabtay boqor Shahriyaar wuxuu dareemay isbedelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shah Zaman, wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo. markii dambe ayuu weydiiyay, wuxuu ku yiri walaalow, markaan halkaan imaanaysa waxaa ka muuqatay murug iyo tiiraanyo, laakiin caadi ayaa tahay hadda ee maxaa ii sheegtaa waxa murugta ka keenay iyo waxa murugta ka qaadayba. wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa, waan kuu sheegayaa waxa murugta iga keenay, laakiin kuma sheegayo waxa murugta iga qaaday. markaas ayuu boqorkii weynaa yiri waayahay bal ii sheeg waxa murugta ku keenay. markaas ayuu uga sheekeeyay arrintii uu kala kulmay xaaskiisii iyo adoonkii sariirta la saarnaaba. markaas ayuu boqor Shahriyaar yiri ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa murugtaasi ama kurbadaasi saas u weyn ka qaaday. markuu ku adkeeyay ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay. boqorkii weynaa wuu rumaysan waayay. markaas ayuu walaalkiisa ka yaraa ku yiri haddaad beenteeda u malaynayso dadka isugu wac oo ku dheh dalxiisii ugaarsi ayaan aadaynaa, markii la baxana inta aad soo dhuumato qolka soo gal. boqor Shahriyaar sidii ayuu sameeyay. kadib waxaa dhacay wuxuu arkay xaaskiisii iyo adoonkii iyo wixii walaalkiisa uga sheekeeyay. weli sheekada ama qisada way socotaa. asxaabtu waxay noo balana habeen dambo.